Osama bin Laden waxa uu dhashay 10kii Maarso 1957 waxa uu dhintay 2 Maaj 2011 magaciisa oo dhammaystiran waa Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden waxa uu ahaa aas-aasihii iyo hogaamiyihii ururka Al-Qaacida oo uu ku aas-aasay Afghanistan sanadii 1988 Al-Qaacida waxay qaaday weerar fara badan oo ay ku beegsanayso military iyo kuwa ismiidaamina waxa uu ku dhashay magaalada Riyadh ee dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa dhalay aabe taajir ah oo lagu magacaabo Mohammed bin Laden waxa uu aabihii ka shaqeyn jiray dhismaha iyo qandaraaskooda waxa uu xiriir iyo calaaqaad dhow la lahaa reerka xukuma Sacuudiga marka loo eego walaalihiis iyo qoyskooda waxa uu ka koobnaa 52 qof waxa uu kaga jiraa kaalinta 17aad waana qofkii 17aad ee uu dhalo Mohammed bin Laden waxa uu Osama wax ku bartay jaamacadda Boqor Cabdulcasiis oo uu ka qaatay shahaadadiisii koowaad ee dhanka dhaqaalaha ah waxa uu ka shaqo bilaabay shirkaddii aabihii ee qandaraaska kadib markii uu aabihii dhintay waxa uu uga tegay lacag dhan $900 milyan waxay lacagtaas u fulisay walajeedooyinkiisii oo ahaa inuu caawiyo mujaahidiintii ka dagaalamayay xilliga dalka Afghanistan oo uu soo duulay Ruushku xilliga bin Laden waxa caawinayay oo la dagaalamayay dalalka Sacuudiga Mareykanka iyo Pakistan waxaana waqtiga uu sameeyay urur dacwadeed loo yaqaanay Faaruq kadib markii uu dhamaaday dagaalkii Afghanistan Osama waxa uu u laabtay dalkiisii Sacuudi Carabiya halkaas oo uu ka ahaa muwaadin waxa sidoo kale dhamaaday dagaalkii qaboobay Mareykanka iyo Ruushka Mareykankuna waxa uu bilaabay inuu ciidan soo dhoobo Khaliijka gaar ahaan Sacuudiga bin Laden arrinkaasi kama aamusin waxa uuna arrinkaasi sabab u noqday xiriirkii xumaa ee markii dambe u dhaxeeyay isaga iyo qoyskii Sacuudiga kadib waxa uu safray Suudaan sanadii 1996 waxa la qarxiyay magaalada Qub ee wadanka Sacuudiga isla markaana Mareykanka iyo Sacuudiguba waxay ku eedeeyeen inuu qarxaas ka dambeeyay Sheikh Osama bin Laden